من فضلكم نظام نتيجة عن نتيجة إن شاء مركن أو سي رسمي نتيجة وريق لبعض oo ay ku tartamayeen 3 musharax waxay noqotay sida soo socota musharax madaxweyne mudane shariif sheekh axmed wuxuu helay 46 cod mudane musharax madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu helay 97 mudane maxamed cabdilaahi farmaajo wuxuu helay 184 saadaradeed raalli waxaan u gudbaynaa wareegga saddexaad meeshiina fadhiya waxaa markaa ku tartami doona 2 musharax sida dastuurka uu qabo mudane warqadaha la bixi wax xumaaday ma jiraan hal baaqatay mooyaane 327 cod baa si sax noqotay waxaa wareegga saddexaad ku tartami doona mudane musharax madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo maxamed cabdulaahi farmaajo labadaasi marka xogeynta ha diyaariso warqadaha oo hana soo dedejiso mudane raalli aada aan ismaqalno waxaa mahadsan jenaraal waad mahadsantahay waxaan u yeerayaa inuu kelmad noo jeediyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud falyatafadal بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمان xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya beesha caalamka ee joogta meesha safaaradaha diblomaasiyiinta shacabka Soomaaliyeed ee nadaawanayo ee telefishinada iyo shaashadaha hortooda fadhiyo dhammaan waxaan leeyahay maanta waa maalin weyn oo taariikhi ah waxaan leeyahay dhammaan dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan hambalyo wada dheer oo maxaan ku yiraahdaa dimuqraadiyadda xaggeeda loo qaaday oo si fiican u socotay ayaa maanta halkan ku soo gabagabowday hawl aad iyo aad u fiican ayaa dadka Soomaaliyeed soo qabteen wadadii dimuqraadiyadda ayaana soo qaadnay meeshii aan rabnay inay nageyso oo ah dalkan taladiisa in si dimuqraadi ah la isku weydaarsado ayayna soo gaarsiisay waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyeeyo walaalkay maxamed naan farmaajo oo noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo waxaan leeyahay hambalyo waxaan rabaa walaalkay farmaajo inaan dhaho hambalyo xilka Allah kugu guuleeyo dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan waxaan leeyahay la garab istaago madaxweynaha cusub dalkuna hore u socdo dimuqraadiyadduna hore u socoto Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato
dimuqraadiyadda iyo dowladnimada soomaaliya ha dhaqan gasho guulaysta adinkana wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu رالي بسم الله walaalyaal barnaamijka ma dhammaanin buuqa naga daaya dhaartii baa dhiman weli brotokoolka ma dhammaanin buuqa iga daaya inta meesha tagana gadaal iga taga gadaal u taga kulligiina go back gadaal u taga gadaal war helo maxkamadda sare loo yeero iga fogaada hali kitaabka walaalyaal faraaqana si allahu nabi calayk بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه وسلم مدنيال dhaartani waa dhaar dastuuriya dastuurka waajibiyey in lagu dhilma la mariyo qof kasta oo qabanaya xilka madaxweynenimada oo danta dalka dadka iyo diinta ku jirto ay ku jirto dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u yaalla ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu isagana xilka u fududeeyo inana aynu noqono ummad adeecda Soomaalina ay guulaysato bismillaah alxamdulilaah dadka Soomaaliyeed dhammaan mar kale waxaan rabaa inaan ku celiyo baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo dadweynaha Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliya ku nool guud ahaan maamul goboleedyada dalka ka jira iyo qurba joogta iyo dhammaan codsiga ugu dambeeya ee halkan aan galabtay caawa uga jeedinay waxay tahay in si dhab ah oo aad iyo aad u xoog badan oo hagar la'aan ah in loola shaqeeyo madaxweynaha cusub si uu waajibkiisa u guto dalkeennuna uu hore ugu sii socdo haddii aan la yidhaah mar kale maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha cusub waxaan leeyahay hambalyo dadka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay hambalyo aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم إلهي بقى محل له وما أنت كسوك هاي كيني وحان مهد علنا إياه اللي بانا الشرفت له هو يسبدل دونك هو عدكودي إسيي هو عدكودي إسينين ما أنت اللي بانا فدرالك الصوماليات وحي كترجمين ربيتان كشعب الصوماليات
guushaan waxaa leh dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay adduunka ka joogaan waa bilawgii guushaan waa bilawgii midnimada Soomaaliyeed waa bilawgii ammaanka iyo raadinta amniga dalka Soomaaliyeed waa bilawgii dimuqraadiyadda Soomaaliyeed waa bilawgii la dagaalanka musuqmaasuqa waxaan ballan halkan ka qaadayaa waxa la yiraahdo core value ama aasaas ah inaan ammaanada dalkan uu leeyahay aan u xafido inaan cadaaladda ka shaqeeyo iyo inaan dadka saboolka ama daryeelka ah aan gacan siino aan caawino insha Allah waxaan rajaynayaa maalmaha soo socda inaan dalka u jeediyo khudbad inta taas laga gaarayo waa mahadsantihiin Soomaali ha noolaato Soomaali ha noolaato Soomaali ha midowdo waa mahadsantihiin walaalayaal waxaan rabaa aan iloobay raaliga ahaada inaan u mahad celiyo murashaxiintii oo dhan oo sanad muddo laga joogo soo shaqeynayay waxaan rabaa si gaar ahaaneed inaan ugu mahad celiyo madaxweynaheygii hore Shariif Sheekh Axmed waxaan rabaa inaan u mahad celiyo madaxweynaheena qaranka oo si nabada oo wanaagsan oo smooth ah ku wareejiyay xilka madaxweyne waa mahadsan tahay الله كحفظه صومالي الله حفظه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن حويني قدوميا بارلبانكا قدوميا أقل كسرة قدومي كوحقانا حلبانا شرفت له وزير هذا يسراكيشة لما انكسوا قاب قلياشة بعد الصحافة ما أنت ومالين وين فعلا ومالين وين قد سعودكي maxay ahaato doorashooyinka waxay ku soo dhamaadeen madaxweyne farmaajo inuu ku guuleysto maanta waa waxaan baliyeenaynaa waxaan u rajaynaynaa guul ummadda Soomaaliyeedna waxaan u rajaynaynaa inay waa cusub gasho walaalkay madaxweyne xasan sheekhna waa mahadsan yahay inuu maanta si furfuran oo farxad leh u wareejiyay xilkii وانا لا شقاي دونا وما سنتين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته kulanka todobaad ee la aqaabka wada jirka ah waa noo xiran yahay marka عليكم على بركه الله ونبدي wadada fura warka wadada fura hadii kale wada taagnaanayna maanta oo dhan wadada fura